waxaanu leenahay haddaanu nahay beesha Abubakar Muuse si muug iyo miisaan leh oo buuxda ayaanu cudud iyo calaf wax allaale wixii aanu leenahay ayaanu sool iyo sanaag iyo cayn ku garab taagannahay nimankan waxa ay doonayaan marka ma aha iga baxay adeerow ma aha shantaas ay rabaan inaan 12 ka qodob ay gudidu soo saartay aanu taageersanahay haddaanu nahay dhalinyarada beesha Abubakar Muuse oo aanu taageersanahay oo la garab taagannahay oo ninka ragga kanaaco u dhintaa kanaaco wuu dhintaa ninka ragga ninna xabadda disho waa geesi marka waxaan ilaa dhalinyaro intaad kanaaco u dhiman lahayd qorigiina qaato dagaalama dagaalku wax ku celi karayo marka hore beelweynta Abubakar Muuse meesha isugu timid mudanayaal iyo marwooyin iyo cuqaal iyo odayaal iyo ninkarbood assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu siimedii beesha dhulbahante iyo beesha fiqishini ee ahaa 330 go'aankay soo saareen haddaanu nahay beesha Abubakar Muuse waanu taageersanahay u diraysaa shuhadadii cadawgu ku laayay magaalada Laascaanood 15 sanadood ee la soo dhaafay ee loo laayay sida tooska iyo sida dadbanba anigu nimanka SNM ay magaalada xooga ku haysta oran maayo ha bixeen ama ha naga tageen nimankaasi waxa ay ku baxayaan iyo waxa ay fiiqaaneen wala garanaya waa xabad waxaanu doonaynaa anagu daabka aanu iibinaynaa haddaanu nahay gabdhaha SSC haddaanu nahay gabdhaha Abubakar Muuse rag iyo dumarba waxaanu meel noo yaalay waan la soo baxaynaa dhulbaanta kalena waxaanu leenahay nagu daydeenba ragga dhulbaanta inuu isku soo jeediyo Ilaahay mideeyo ayaanu Ilaahay ka baryaynaa asaga raxmaan baa qabsatay waxay daba socdaa qodobadii guddigii 33 ahaa ee ay ka tashiga sool iyo sanaag iyo cayn shirkaasu wuxuu taageerayaa oo uu taageero u yahay ummadda qaryadan hadda aanu magacawnay ku nool ee sool iyo sanaag iyo cayn shirkaas ayuu taageero u yahay waxaanu ku taageeraynaa qodobada 12 ahaa ee guddida 33 ah ee ay ka tashiga sool iyo sanaag iyo cayn ay soo saareen waxaanu leenahay kii lagu nastay lagu nagaado Allah ka dhigo kii lagu nastay lagu nagaado Allah ka dhigo inta kadib waxaan leeyahay nimankan SNM waxa laga sheekeeyaa oo ay ka hadlaan 4 saac ummadan hadda qaryadan ku nool sool iyo sanaag iyo cayn wada hadal la galo oo xaaladda wada hadal lagu dhameeyo dadku sidoo maxay ka wada hadlaan wixii ka dhaxeeyay ka wada hadlaan wuxuu doonaba ha noqdo dadka wixii ka dhaxeeyay bil aadamka ka dhaxeeyay la isugu yimaado ama dhalasho ha noqdo ama dhaqan ha noqdo ama dhiig ha noqdo dadku wixii ka dhaxeeya laga wada hadlaa horta maxaa inaga dhaxeeya anaga SNM ka wada hadlaynaa wax inaga dhaxeeyo oo aynu ka wada hadla hadaynu nahay sool iyo sanaag iyo cayn miyaad garanaysaan wax inaga dhaxeeya hadaba ma ay jirto waxaynu ka wada hadallo oo aynu maanta isweydiino oo aynu dhahno aynu ka wada hadallo inooma muuqdo waxa weeye marka waxaan arkayaa dad 4 saac meelaha ka soo hadlaya oo wax shubaya aan loo joogin war dadkanu sool iyo sanaag iyo cayn waa nimankii aad taqaaneen ee gaaladii dabada cadayd meeshay la mareen iyo waxay mariyeen aad taqaaneen niman loo goodiyo ama wax loo sheego ama loo hanjabo nimankanu ma ayaha waxa weeye ninka wuxuu yiri ma nin la furaanay aanay tayda noqotay dad loo hanjabo oo wax loo sheega manin waxaanu leenahay haddaanu nahay beesha Abubakar Muuse si muug iyo miisaan leh oo buuxda ayaanu cudud iyo calaf wax allaale wixii aanu leenahay ayaanu sool iyo sanaag iyo cayn ku garab taagannahay cudud iyo calaf wixii aanu leenahay iyo ciidan haddayna gabadhu naga hadhaynin sool iyo sanaag iyo cayn baan ku garab taagannahay qayrka wuxuu qabo qosolka ku dhambeeyay Soomaalidu dhaxdaa waxa kale oo Soomaalida dhaxdaa shanta nimayna ka reebin sharci kaama reebo way ka tagtay oo way dhaaftay bari iyo isqasaq iyo waxyaalo la soo sheeyay in adeerow iyo iga bax iyo waxyaalaha anigu inaan iga baxdana ma aaminsaniba iga bax madam maxaa ka baxa nin ku haysta baadar Soomaalidu waxay dhahdaan nin gabadh naagtaada u socda gabadheedan ku siinaya lagama karo ninka hadduu naagtaada doonayo naagtaada u socdo dee gabadheedan ku siinaya yeeli maysa tan uu rabaad haysta inuu ka qaade ma gabadh wax ku falaya nimankan waxa ay doonayaan marka ma aha iga baxay adeerow ma aha shantaas ay rabaan
shantaasay rabaan taasaynu diyaar olanahay soo maaha taasaynu diyaar olanahay soo maaha ha noolaato khaatuma ha noolaato sool iyo sanaag iyo cayn ha israaceen mowqafkoodii iyo muruqoodii iyo maalkooduba ha midoobo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marka hore beelweynta bokor muuse ee meesha isugu timid mudanayaal iyo marwooyin iyo cuqaal iyo odayaal iyo nin garbood assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waan idinka mahad celinaynaa ajiibidda aadna soo ajiibteen aad soo camirteen fursaddan qaaliga ah ee aad isugu timaadeen marka hore marka labaad ilaahay subxaana wa tacaala ayaa mahadle ina baray ilaahay subxaana wa tacaala ina baray waxaynu u noolahay iyo meeshaynu u soconay meesha ka nabdintaba ayaa mahad iskale haaniyan sidii ragga iga horreeyey ay sheegeen shirkani wuxuu daba socdaa shirarkii muddadanba socday gobollada SSC dadka degan ay kaga hadlayeen mowqifkooda iyo masiirkooda intaa kadib waxaanu taageeraynaa waxa ay qabaan ummadda ku nool SSC masiirkooda inay ka tashadaan iyo inay danahooda caamkaa qabsadaan iyo inay dantooda guud iyagu gartaan ilaahayna ha garansiiyo waxaa kale aanu taageeraynaa isimada iyo guurtida iyo ningarboodka iyo guddidii 3 ahayd waxay soo jeediyeen talaa ayaanu iyadana ku garab taagannahay sidii ay sheegeen raggii iga horreeyeyba waxaan ku darayaa oo kelmadda ay raacda ummadda ilaahay abuurtay waxay guul ku gaadhaa waxay sharaf ku gaadhaa midnimo waxaan faraynaa beelaha SSC meel kastay joogaan midnimo iyo inay dantooda iyagu ka tashadaan iyo dantiinna haddaydaan iyadu ka tashan inaanay toosayn iyo inay halkeeda oolayso beelaha SSC midnimaan faraynaa beelaha kale waxaan iyagana faraynaa dhibaatadu intii hore ha ku ekaato xaq bayna u leeyihiin beelaha SSC inay ka tashadaan dantooda iyo masiirkooda iyo ummad ahaantooda iyo jiritaankooda xaq bay u leeyihiin cid u diidi karta iyo cid ka horsaa kartaa midna ma jirto iyagana saasaan leeyahay intaasaan hadalka kaga tegaya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu inaanu 12 qodobe ay guddidu soo saartay aanu taageersannahay haddaanu nahay dhallinyarada beesha Abubakar Muuse oo aanu taageersannahay oo ku garab taagannahay oo ninka ragga kanaaco u dhintaa kanaaco buu u dhintaa ninka ragga ninna xabadda disho waa geesi marka waxaan dhihi lahaa dhallinyaroy intaad kanaaco u dhiman lahayd qorigiina qaatoo dagaalama dagaalunba wax idinka celi karaya bismillah marka waxaan dhihi lahaa awoola dhallinyarada annagu waanu garab taagannahay 33 guddida waxaanay sheegayaan maamulku sheegu ay soo doorteenna yaadana waxaanu dooranay 33 ka mid aanu dooranay odayaasheedii iyo cuqaasheedii inta gobol ka maray ay noo doortee kuwa anaga kuwaasa taladeeda ayaha iyaga haya nin kale oo mataqaanaa oo horgal ah oo danta gurigiisa u socda keliya danta dhulbaato ma socdo waa qaala gurigiisa muddo ninkaas dhacsanaya marka annaga nama matelaan nimankaasi nama matelaan waxay noo hayaan ma jirto waxaan dhihi lahaa nimankaas aanu deriska nahay deris wadaag iyo tolnimo aynu ku wada noolaano annagu maamul baan leenahay maamulkaygu waa Khaatume State waxaan halkan ka baaqayaa ama ka soo dhaweynayaa ama ku xoojinayaa isimadii beesha dhulbahante iyo beesha fiqishini ee ahaa 3 go-aankay soo saareen haddaanu nahay beesha Abubakar Muuse waanu taageersanna waanu taageeraynaa waxaanu u taagaynaa 5 farood iyo calaacal bulshada SSC wixii dalka jooga iyo kuwa dibadda joogaba waxaan ugu baaqayaa gacan dheer cod gaaban iyo cod dheerba inay ka qayb qaataan xoreynta lagu xoreynayo gobollada SSC asalam waxaan mar labaad ku celinayaa ama mar saddexaad aan ku celinayaa gobollada bulshada SSC inay masiirkeeda iyo aayaheeda aysan u daba fadhiisanayn asalam ama ay qof ay soo dirsatay
oo dhuuri qaata waxaan halkan mowqifka SSC ku caddaynayaa ama aan uga baaqayaa nin garboodkooda iyo waxgaradkoodu gacmo wada jir bay wax ku gooyaan inay garbaha isqabsadaan inay gacmaha isqabsadaan inay wada jir uga hor yimaadaan aslam waxaan halkan ka salaamayaa garaad jaamac garaad ismaaciil oo ku baaqay ama halka kan hirgeliyey inay odayaasha 33 aayaha dhulbahante ay iyagu masiirka ay gacanta ku hayaan una daba fadhiisan doonin waxaan halkan ka sheegayaa ama ka caddaynayaa aslam waxaanu isku darsannay oo aanu miis ku wada seexannay horta ma jirto wax sheegaya ama caddaynayaana ma ay jiraan sidaa darteed meesha qori bay ku soo galeen qorina ha kaga baxeen waxaan kala caddaynayaa war nimanka horgalka ah oo dhulbahante annagu odhan mayno idinku aslan baa tihiine war inaadna xukuntaan oo xorriyad nagu xukuntaan baanu diyaaruna inaan idinka waxba laydiin yeedhin oo aslan waxba idiin yeedhin baanu diyaar u nahay meel kastoo gobol kasta oo degmo kastaoo Soomaaliya Puntland Galmudug Jubbaland koonfur galbeed sidaa inaad u midoowdaan oo maamul u samaysataan oo idinku madax ka noqotaan oo masiir iyo magac yeelataan bulshadiina aad uga tagtaan masiir iyo magac wartaasaanu diyaaruna waxaanu halkan ka caddaynaynaa bulshada SSC hiil iyo hoo iyo garab iyo gaashaan intaba waanu la dul taaganna horeyba sheegeen shirkani wuxuu daaran yahay oo loo soo abaabulay marka koowaad taageeridda qodobadii ka soo baxay go'aamadii ay gaadheen waxgaradka dhulbahante gaar ahaan 33 oday SSC ee lagu midoobay mid dheer iyo mid dhowa ay taageereen taageero ka bacdi waxaan kaloo halkan ka soo jeedinayaa baaq iyo aanu soo jeedinayo beesha dhulbahante anigu nimanka SNM ay magaalada xooga ku haysta odhan maayo ha baxeen ama ha naga tageene nimankaasi waxa ay ku baxayaan iyo waxa ay fiiqaaneen wala garanaya waa xabad laakiin waxaan leeyahay marka koobaad oon taageersanahay si buuxda oo qur iyo qabiilba go'aamadaas iyo waxyaalaha ka soo baxay shirkii iyo isimadu cilaamiyeen iyo waxgaradkii marka labaad waxaan dhulbaanto ugu baaqayaa inay midoobaan oo sida haddeer ay isugu yimaadeen mid dhow iyo mid dheer iyo mid mucaarad ahaa iyo mid muxaafid ahaba iyo mid maamul ku jirayba inay halkaa kasii xoojiyaan qodobka saddexaad waxaan ugu baaqayaa dhallinyarada dhulbahanteeg iyo tabeeshaba gaar ahaan waxyaalahan dhacdhacaya iyo sawiradan waxa laga qaadayo iyo waxaan la faafinaya beenta la isku sawirayo iyo waxyaalaha cadka quurada loo tuurayo ee lagu sawirayo maanta ay u dambeysay aan miidiyihii ka mari kar weynay ee laga fadhiisan kar waayay waxyaalaha loo qaybinayo war waxaasi waxaa dhaantay idinkoo dagaalamo oo dhalkiin xoreysta oo cashuurta iyo waxyaalaha aad hadda laynii qaybinayo xoolihiinniba si xun laynii siinaya marka waxaan taageersanahay inaad dalkiina difaac u gashaan oo dagaalka gashaan oo xoreysaan oo aad idinku waxaan layni siinaya nimankan SL layni siinayaane liita ay nagu sawirayaane hadhowna intay dhahaan inay ballan qaadaan aad waayaysaanba inaad idinku gacantiina ku samaysataan oo gacantiina biyo sacbada lagaga dhargaa baa la yidhi aad gacantiina gobolkiina iyo deegaanadiina waad ugu talisaan sida 33 nin ee masiirka dhulbahante haya aanu dirsanay baanu diyaar u nahay annaga iyo ragga iyaguba annaguna ragga iyagu taa ay soo jeediyaan baan diyaar waxaanu doonaynaa annagu dahabka aanu iibinaynaa haddaanu nahay gabdhaha SSC haddaanu nahay gabdhaha Bokor Muuse rag iyo dumarba waxaanu meel noo yaalay waanu la soo baxaynaa dhulbahanta kalena waxaanu leenahay nagu daydeenba السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله waxaan halkan ka jeedinayaa baaq beesha Bokor Muuse waxay taageersan tahay qodobadii 12 ahaa ay soo jeediyeen guddiga ee ay ka talinta
gobollada sool sanaag iyo cayn u diraysaa shuhadadii cadowgu ku laayay magaalada laascaanood 15 sannadood ee la soo dhaafay ee loo laayay sida tooska iyo sida dadbanba beeshu waxay ilaahay caafimaad u weydiinaysaa dadka dhaawaca ee shuhadada ah ee ku dhaawacmay kacdoonka shacabka ee yaala isbitaalada magaalooyinka laascaanood iyo garowe beeshu waxay u mahad celinaysaa garaad jaamac garaad ismaaciil ducaale oo hawshan door weyn ka qaatay beeshu waxay taageeraysaa go'aankii 13 xubnood ee 12 qodob ahaa ee ay soo saareen ayay beeshu si mugle u taageeraysaa beeshu waxay adkeynaysaa baaqi beelaha SSC ee ahaa in ciidamada Somaliland ama ciidamada beesha Isaaq ee ku soo duulay deegaanada Sool iyo Sanaag iyo Cayn inay si nabad ah uga baxaan gobollada Sool Sanaag iyo Cayn haddii ay uga bixi waayaanna beeshu waxay hormuud u noqonaysaa si looga xoreyn lahaa dadka iyo deegaanka nimanka Isaaq ee ku soo duulay deegaanka ayna lahayd beeshu waxay beelaha dhulbahantay ugu baaqaysaa inay ilaaliyaan midnimadooda iyo wadajirkooda wabillahi tawfiiq shirkeennii intaas ugu saabsan yahay